dawada qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka caafimaadka ayaana waxaan ku soo qaadan doonaa daraasad lagu sameeyay dadka iyagoo habeenkii shaqeeya ama joogteeya soo jeedka oo ay sababi karto inay ku keento cudurrada ugu halista badan la caalamka ee bini'aadamka ku dhaca jaamacad ku taala Washington qaybteeda hurdada ayaa hadaba waxa lagu sameeyay baaritaan lagu sameeyay 14 qof daraasadan ayaa waxa sameeyay Halista oo ah madaxa baarinta qaybta hurdada iyo daraasadka jaamacadda Washington waxa uu baaritaan xarunta ku sameeyay 14 qof oo daadoodu u dhaxayso 22 ilaa 34 isagoo u qaybiyay laba kooxood kooxda koowaad ayaa la seexiyay saacadaha u dhaxeeya 10 habeenimo ilaa 6 subaxnimo muddo 3 habeen ah halka kooxda kalena ay soo jeedeen 10 habeenimo ilaa 6 subaxnimo halka ay maalinkii seexdeen muddadaasi markii ay soo dhamaatay ayaa lagu sameeyay baaritaan laga qaaday dhiigaga muddo 24 saacadood ah ayaa 3 saacadood ba dhiigag laga qaadayay dadkaasi dhiigagan ayaa waxa qaadayay jaamacadda waxaana la baaray dheecaamada melatonin iyo cortisol baaritaanadan ayaa soo saaray hoos u dhac iyo waliba kor u kac ku yimid dheecaanadan ayaa inta badan waxa ay la shaqeeyaan habdhiska dheefshiidka bini'aadamka kaas oo ay soo deyso maskaxdu baaritaanadan la qaaday ayaa lagu ogaaday inay sababi karaan halis caafimaad haddii uu qofku joogteeyo soo jeeditaanka habeenkii ama uu shaqeeyo xanuunada lagu ogaaday baaritaankan ayaa ah in qofku ay ku dhici karaan wadna xanuun sonkor dhiikar kansarka iyo waliba maskaxda oo istaagta muhiimadda hurdada ayaa waxa ka hadashay diinteena iyadoo waliba quraanka kariimkana ilaahay uu ku sheegay wajacalna layla libaasan wajacalna naharan maashan oo ah in faa'iidada habeenkii hurdada la helo ay ka faa'iido badan tahay maalinkii la seexdo qodobkaas ayaa u dambeeyay warbixinadii iyo waliba warbixinta caafimaadka iyo wararka caalamka oo aad kala socoteen sahan online waxaad la socodsiinayaan anigu Ibrahim Maxamuud Jaamac intaan kulmayno waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo